السلام عليكم ورا صحابي اسكو soo noqosho wanaagsan maanta waa Dr. Xaashi Network iyo mar kale videogan today waxaan breegan ka qaadaynaa fiidiyowdii caafimaadka la xiriiray waxaan soo dhamaynay fiidiyow dhawr xanuunka la xiriiray su'aalaha iyo jawaabaha waa soo post gareeyay iyagana maanta waxaan rabaa inaan fiidiyogan yarka idin kula sharaxo gaar ahaan dadka luqadda Ingiriisiga baranaya luqadda Ingiriisigu marka aad ama jaamacad aadaydo ama college ama waxbarasho aad waddan u aadaydo waa waxyaalaha ugu muhiimsan ama hubka ugu muhiimsan oo aad ku dagaalami karto marka fiidiyoga waxaan maaragtay idinkula wadaagayaa qaabka ugu fudud luqadda Ingiriisiga loo barto in badan oo idin ka mid ah waxaad ogtihiin in iskool la aado kow oo laga soo dhigto xiisad la xaadiro cashar la soo qaato laakiin waxyaalahaas oo dhan wax ka muhiimsan ayaa jira oo aniga ii shaqeeyay horta markii aan waddanka Canada oo hadda idin kala hadlayo aan imaaday waxyaalaha ugu adag oo aan wajaha waxay ahaayeen luqadda Ingiriisiga anigoo waxay bilaaban yihiin oo dadkii alabaadir luqadda Ingiriisiga ku soo bartay oo barefadiyada ku soo jabay ku jiray haddana waxyaalaha ugu adag oo wajaha waxay ahaayeen luqadda Ingiriisiga marka waxyaalo badan oo maaragtay tricks oo ii shaqeeyaan rabaa inaan videogan idin kula wadaago kow luqadda Ingiriisiga marka aad baraydo haddii aad labaan u kala qaadayna haddii aad joogto horta markii iskuul la aadayo inta badan waa same oo mar walba iskuul aad aadayda waa casharaad xaadirayda waa soo qaadanaysaa casharada homework lagu siinayaa paragraph-ya qor lagu leeyahay essay ka soo shaqeey lagu leeyahay taas adduunka oo dhan waa isaga mid waa standard xoogaa wadamadan luqadda Ingiriisiga looga hadlaa maaragtay more details ahaadaan oo ku fiicnaadaan laakiin meel kastoo aad joogto waa same iskuul la aada waxa ay ku kala duwan yihiin waxa waaye meel markii oo luqadda Ingiriisiga looga hadla aadan joogin macnaha casharkii aad soo dhigatay inta badan ma practice garaynaysid ma arkaydid mar walba caqabad aad ka qabaydaa inaad ku hadasho luqadda Ingiriisiga aad ku hadasho adigoo fahmaya oo comprehension-kaaga uu fiican yahay haddana inaad ku hadasho oo engage gareedo conversation oo qof kula hadasho ama aad way kugu adkaanaysaa sababtoo ma aadan practice garayno ma aadan arag marka caqabadahaas looga gudbaa caqabadahaas horta kow waxaan ku hormaraynaa markaad joogto waddan luqadda Ingiriisiga looga hadlo waddan luqadda Ingiriisiga looga hadlo markaad joogto waa inaad dadka aad raacaydo la sheekaysaydo classmate-ka asxaabta noqoydin waa inay noqdaan dad aadnan isku luqad ahayn oo luqadaadii kale dhan aad meel soo dhigato taas guriga kuga soo tagto maanta dhan dadkaas kula hadashaa kula sheekaysataa wax isku dhaafsatiin su'aalo ku weydiida social media iyaga ka follow garayda wax isugu soo qortiin ilaa isku luqad ma idin kaliya Ingiriiskaas idin ka dhaxay marka waxna markaad u baahan tahay inaad ogaato maaragtay duruufaha kugu qasbayo qofkii dadkii si qasab ah la hadlay marka qayb waa qaybtaas marka waa inaad iska hagaajida oo dadka aad maaragtay aad la socaydo asxaabta tihiin waa inay noqdaan dad aan isku luqad ahayn oo luqadda Ingiriisiga kaliya ay tahay waxa idin dhexeed ku xiriiri kartiin halkaa waxaa ku horumarinaydaa speaking-kaagii confidence aad dareemayda marka dadka la hadasho labo waa inaad ogaataa inaysan jirin wax qalad leera iyo wax sax leera markii luqadda Ingiriisiga lagu hadlayo muhiimadaadu adiga waa inaad fahmi karto waxa lagu leeyahay waxa aad dadka leedana ay maaragtay ku fahmi karaan it does not matter grammar-kaaga xumaa sentence structure-kaaga xumeed nobody cares grammar-kaaga iyo sentence structure-kaaga eventually waad dibad u heli doontaa markaad wax qoraydo waraaq official qoraydo email qoraydo waa markaas markay tahay inaad ka taxadirto grammar-kaaga iyo sentence structure-kaaga iyo sida wax loo qoro laakiin markaad ku hadlaydo nobody cares adigu TV caalami uma shaqaydid inaad noloshaada adigu ku dabarato umbaad maaragtay iyo hawlaha ku kala wadataad luqadda aad u barayday adigu maaragtay wariye maadan ahayn iyo qof oo idaacada laga wareysanayo marka iska ilow haddaad ka baqdo tiraado ma ku hadlayo ilaa aan saxmo grammar-kayga iyo waxaygu saxmaan weligaa ma saxmayda haddaadan ku hadlin marka confidence-gaaga si aad u boost garaydo wax allaala iyo wixii soo qabta waa inaad iska tiraadood ku hadashaa ood iska dariiqsata ood qajajicida oo hadba dhinac ka soo gashaa cabsida iska ilow aksana Ingiriiska ugu hadlaya waa inaad ogaataa sidoo kale dadka caalamka Ingiriisiga ku hadla kala bar ka mid dadka luqadda Ingiriisiga u dhasho native-ka maaha waa dad bartay marka adduunka hadda la iskulama yaabo inaad accent ku hadashaa waa meelaha qaarkood waaba lagu faanaaba inaad accent ku hadasho why because luqad kale kuu qarsoon wey qof waxaad tahay capable ah oo laba luqadood inuu ku hadla awoodaa tahay marka dadkan maaragtay weliba cadaanka iyo ajnabiga iyo markay ku arkaan adoo luqadda Ingiriisiga accent ugu hadlayo you speak another language inay ku yiraahdaan laga yaabaa marka waxayba iyagu u arkaanba
adiguna waxaad isku dariiqahooda iska dhigay inaad maaragtay luuqadii waxaad isleedahay first language oo kale ugu hadal, ayaguna markaad second language ahaan ugu hadlayda waxay ku arkaan qof maaragtay waaweynka oo maskax furan oo luuqad kale ku hadla. inaad ingiriiska si accent oo jajab xoogaa ku jira aad ugu hadashaa waxay sheegaydaa inaad luuqad kale ku hadasho. haddaad luuqad kale ku hadashana qof laba luuqadood ku hadla taa waa inaad ogaataa. marka ha ka xishoon, jajabso, ku hadal, waa sidaas. marka waa haddii aad joogto waddan maaragtay luuqadda ingiriisiga looga hadlo. haddii aad joogto waddan aan luuqadda ingiriisiga looga hadlin ama aysan first language ka ahayn, maxaad marka samayn kartaa? waxaad samayn kartaa broadcastiga waxa aad dhegaysanayso inta aad media iyo YouTube iyo dad Soomaaliya oo iscacaayaya iyo kuwa siyaasad ka doodaya iyo waxyaalahaas iyo khiyaali yaryar inta dhegaysanayso broadcast samayso channel aad ku xiran tahay, ama waxay ka hadlaan waxyaalo oo social ah ay ka hadlaan, ama maaragtay waaba lecture caadi oo la soo jeediyo oo maaragtay presentation may sameeyaan, ama waaba waraysiyo caadi oo maaragtay channel dadka soo waraysta laakiin luuqadda ingiriisiga bis ku waraysta. channelada noocaas ku xirnow oo dhageyso. marka sida u dhageysada waa aragta carruurta yaryarka markay kartoomada iyo dhageystaan ayagoo weligood meel dad ku hadla ariga luuqadda ingiriisiga bartaan. marka dhageysadku waa very important. casharada aad soo qaadato, markaad soo qaadato maalintii 30 daqiiqo 40 daqiiqo 1 saac waxaad awoodo broadcast oo English dhageyso. canjalada xataa la soo gataa waa jiraan, laakiin hadda wax walba anigu waagaas canjaladan soo gada jiro aan maaragtay iyo raadiyo iyo soo gataan dhageysan jira, laakiin hadda wax walba YouTube-ka ka helay broadcast aad subscribe leedahay, iyadaasaad iskala socday maalintii kuwa kale xataa daawo karta. marka waxa aad daawato, waxa aad dhageysato, waxaas oo dhan luuqadda ingiriisiga ha ahaado. waqti yar oo kooban, muddo ka yar 6 bilood waxaad ku noqonaysaa maaragtay perfect noqon mayda, laakiin aad iyo aad maaragtay conference-gaaga uu maaragtay kalsoonidaada ay u kordhayda oo u baranayso oo u fahmayda luuqadda ingiriisiga. marka halkaan kusoo kabangabeeyahay fiidiyoyo kale aan kula wadaagi doonaa marka ay noqoto qoraalka iyo aasayga iyo sida loo qoro iyo meesha laga bilaabo iyo iskuulka aad bilaabay sida loo choose garaysto. fiidiyoyo kale aan kula wadaagi doonaa, laakiin midkan si guud luuqadda ingiriisiga haddaad barato isku day inaadan ka xishoon inaad ku hadasho, si jajaba ugu hadasho, waxna dhageyso, idaacadaha aad ku xiran tahay iyo waxaas oo dhan ha noqdaan. haddii aad waddan ingiriiska looga hadlo Canada oo kale ama Maraykan oo kale iyo UK oo kale iyo joogtana, dadka aad ku xiran tahay circle-ka ay yiraahdaan oo friends-ka oo la sheekaysatood wax weydiidaa, inta badan ha u badnaadaan dadka ajnabiga. see you soon. channelka isla wadaaga, share gareeya, like iyo share-ka video-ga ugu dadaal.